wax ka badan 5 sano ayaa la la'yahay gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax waxay ahayd sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA sidoo kale waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo wax baratay kana shaqeynaysay dowladda hoose ee Xamar 26 Juun 2020 ayaa la waayay tan iyo xilligaasna waxaa soo baxayay xogo iyo macluumaad iskhilaafsan mar kale caawa waxaan isla eegaynaa xog ururin la sameeyay sanadan aanu ku jirno ee 2026 oo 5 sanadood ka hor ku beegan qiyaastii gabadhan sanadkii 6aad ayaa la la'yahay oo 5 sano ayaa u buuxsantay sanadkii 6aad bishan Luulyo aanu marayno ayuu bilow ka yahay saraakiil iyo khubaro amni iyo dhinacyo kala duwan oo ammaanka hore uga soo shaqeeyay waxay isku waafaqeen in gabadhan qaab assassination ama shirqoole lagu khaarijiyay halka khubaro kale oo amni ay qabaan in ay weli nooshahay haddaba xogta rasmiga ah waatee haddii ay dhimatay waayo cidda gacanteeda ay ku dambeysay maxay tahay sababta raggi isku eedeeyay gabadhan kiiskeeda oo 7 ruux gaaraya ilaa ay hadda aan loo keenin cadaaladda waa halka reer mudugu yiraahdaan ninka sheega ma dhaafto weeye Ikraan Tahliil Faarax dilkeeda waxa isku eedeeyay 2 qolo waxaa hogaaminaya agaasimo hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuuna ku eedeeyay 4 nin oo qaraabo ah oo wada dhalatay ama hal beel ka soo jeeda midkoodna uu ku jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ama uu madax ka yahay halka Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya isaguna uu eedeyn culus jeediyay waxaa si la yaab leh in Mahad Maxamed Salaad Taliya hadda NISA joogo isaga oo xildhibaan uu yiri Ikraan waxaa dilay Fahad Yaasiin iyo rag kale oo uu magacyadooda sheegay oo aan kula wadaagi doono 7daas nin ee is eedeeyay oo 3na isku qayb tahay 4na qayb ay tahay maxaa ilaa ay hadda loo soo taagilayahay cadaaladda door intee leeg ayuu ku leeyahay madaxweynihii waqtigaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muxuu ka ogaa Xasan Sheekh Maxamuud oo gabadhan ku soo ololeeyay waqtigiisii waa dhamaaday 4 sano wax ka badan uu dalka maamulaya maalinna ma uusan soo hadal qaadin ma laga yaabaa garabka mucaaradka inay ku maqan tahay xogahaas oo dhan ayaan isla soo koobaynaa iyo xogta sheegaysa in dhawaan qof looga shakiyay gabadhan lafihiisa iyo meydkiisa laga helay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaanna degmada Garisbaale ee gobolka Banaadir qofkaasi qof caankee ah buu ahaa xogta soo baxday maxay tahay wararkaas oo dhan ayaan soo koobaya aragtidaada nagu biiri muuqaalka like saar siina share garee saaxiibadaadana la wadaag cidda aad isleedahay way ku maqan tahay ugu yaraan aragtidaada noogu reeb waa mahadsan tahay iyo filashadaada iyo waxa aad qabto Ikraan waxay ahayd gabar dhalinyaro ah dadka badankood way ka dharagsan yihiin gabadhan waxay ahayd gabar u shaqeysa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee sarkaalna ahayd oo qaybta network ama internetka ka shaqeynaysay sidoo kale waxay si dhow saaxiibana u ahaayeen shaqo wadaagna u ahaayeen Ilaahay u naxariistee duqii hore ee Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yarisow kiiskiisa ayayba eersatay bay dadka qaar qabaan oo xog badan ayay ka haysay injineerkan qaabkii loo dilay shirqoolkiisa cidda ka dambeysay iyo macluumaad kale oo badan in ay haysay ayaa la rumaysayahay waxa ay eeday ee loo dilana qaybta ay ka ahaayeen habeenkii 26 Juun oo loo dabaaldegayay xorriyadda gobolada waqooyi ee Soomaaliya gaari uu leeyahay agaasimihii hore ee NISA gobolka Banaadir haddana ah xildhibaan oo loo yaqaan Yaasiin Cabdullaahi Cusmaan Yaasiin Faray darawalkiisa iyo gaarigiisa ayaa lagu qaaday gabadhan waxaana la geeyay aaga godka jileeco oo nabad sugidda ay maamusho sida xogo horeba ay markaas baahiyeen gaarigaasi waa uu qaaday kadib rasaas ayaa la maqlay 2 ilaa 3 xabadooda oo aaga godka jileeco laga maqlay maadaama ay ahayd 12 saq dhexe dabaaldegana is qabsanayeen rasaas toosa iyo sidoo kale bulaleyr iyo baaruud kaleba lagu dabaaldegayay si rasmi ah looma garan rasaastuma waxay ahayd tii dabaaldega mise waxay ahayd mid lagu shirqoolay oo lagu dilayay gabadha lama oga maalmo lis haystay mudanayaal baarlamaan oo gabadha matala hooyada gabadha qaali guhaad iyo mas'uuliyiin kaleba ay hadleen waxaa midba midka kale uu ku eedeeyay dilka gabadhan waana u tagaynaa halka hadda ay wax taagan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan kuu soo koobo dhacdadii iyo tagtadii iyo wixii la soo maray oo dhan sidoo kale waxaa la khaarijiyay Ilaahay u raxmadee Aamina Maxamed Cabdi oo iyaduna xildhibaan ahaydna gabadha mataladeeda baarlamaanka sidoo kalena isku qabiil lahaayeen waxaa lagu dilay Beledweyne
qarax ayaa lala beegsaday iyada oo kursi doona ama raadinaysa in ay jago hesho. dilka Aamina iyo Ikraan tacsideeda waxaa si goob fagaara ah ka istaagay Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wuxuu si cad u sheegay in cidda Ikraan dishay ay Aaminana dishay, isagana uu hayo fariimahan jawaada oo loo soo diray oo la leeyahay haddii aad ka hari weydo kiiska noocaas waanu ku dilaynaa. fariimahaas waa hayaa buu yiri, waxaan ka sheegi doonaa maxkamad horteeda, waana cadeyn doonaa. Muxuu cadeyn waayay waa la isweydiinaya. in yar oo Rooble hadalkiisa ka mid ah kula wadaagaya, haddana waxaan u soo laaban doonaa weli mowduuceena oo silsilad ah. Ikraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. laakiin waa la igaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey war ragga kale celiya anigii madaxweyne Farmaajo. ma ahayn targetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Ikraan Tahliil oo ay Aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo, in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ee ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. sababtaas saas u leeyahay waa aad daawatay Maxamed Xuseen Rooble wuxuu yiri cidda Ikraan dishay ayaa Aaminana dishay, waanan hayaa fariimahan jawaada ah. isagoo ra'iisul wasaare ah iyo isagoo mucaarad ahba wuu joogaa, weligiina maxkamad iyo kiiskaas ma uusan soo hadal qaadin. geesta kale madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu Farmaajo ugu baaqayay in uu kiiska gabadhaas u daayo cadaalad, hooyadeed iyo reerkeeda oo dhanna ay cadaalad helaan, isagoo mucaarada weeyay 2020 oo kursi doona. laakiin 15 May 2022 Ilaahay wuxuu qadaray inuu isagoo jagada dalku guuleysto oo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Xasan maalinna ma uusan soo hadal qaadin kiiskan gabadhaas, iyaduna waa weydiin iyo calaamad su'aal kale oo muujinaysa Xasan Sheikh Madoor buu ku lahaa kiiskan. waxaa kale oo intaa dheer agaasimihii nisa ee bariga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo lagu eedeeyay dilka gabadha ayaa waraysi bixiyay isaguna 2022. wuxuu eedeeyay Mahad Maxamed Salaad oo hadda nisa madax ka ah oo horena xildhibaan u ahaa. wuxuu sheegay in gaari al-cadaala uu leeyahay lagu qaaday, waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, la geeyay Daar es Salaam, la sii geeyay Kutuwaari oo Shabeellaha Hoose ah, al-shabaabna sidaas loogu gacan geliyay. qofka saddexaad ee uu eedeeyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waa Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. waa 3 nin oo isku beela. ninka afaraad waa Mahad Karatay, wuxuu ka tirsan yahay al-shabaab laakiin wuxuu ku heeb yahay ragga saddexda ee dawladda ku jira. 4 nin baa adduun iyo aakhire wax laga weydiinayaa ayuu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ka yiri fagaare. haddaba 4tii la eedeeyay ilaa ay hadda maxkamad lama soo taagay. 4 iyaguna waxay eedeeyeen 3 nin kale. ninka la yiraahdo Mahad Salaad oo xildhibaana wuxuu eedeeyay Kulanajiis oo hadda xildhibaana, Yaasiin Fari oo hadda xildhibaana laakiin hore dhiso ugu tirsanaa, iyo Fahad Yaasiin oo hadda baagamundo aan wax lahayn. 3 iyo 4 waa 7. 7 nin ayaa isku eedeeyay dalka Ikraan Tahliil Faarax. waxaana dad badan ay leeyihiin maxaa diidaya in 7doodaba loogu yeero maxkamad si wada jira, isla markaana la soo taago, laguna soo oogo dacwado, isla markaana wixii ay geysteen laga abaalmariyo. mise dowladda hadda jirta ayaan doonayn in kiiskaas oo dhan la daba galo. ilaa iyo hadda su'aalaha la isweydiinayo ay qayb ka tahay. ugu dambeyn marka waxaan u imaanaynaa maanta la joogo oo 2026 bartamaheeda la dhaafay oo bishii 7aad aanu ku jirno. Ikraan Tahliil Faarax weli qoyskeeda way laayihiin, waxay raadinayaan cadaalad. gabadhooda ma nooshahay, ma la dilay, wax wara uma hayaan. hooyada dhashay Ikraan oo lagu magacaabo Qaali Guhaad iyo qoyskeeda oo reer Hiiraan afkii baa juuqda gabay, ma hadlaan, cadaalad uma raadiyaan gabadhooda. dib dambe looma arag wixii ka dambeeyay doorashada Xasan Sheikh. ma lacag baa la siiyey, ma samreen, ma wax kale jira? ilaa iyo hadda waa la isweydiinayaa.
haddii waqtigan oo kale ololo doorasho la gaaro marka waxaa la leeyahay gabadha kiiskeeda maxaa soo kiciyay toddobaadkii hore waxaa ka hadlay arrintan gudoomiyihii hore amniga siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali oo qoraal dheer uu soo qoray qodobo dhowra kaga hadlay isagoo si cad u sheegay in kiiska gabadhaas weli uu yahay mid taagan cadaaladna u baahan wararkaas markii ay suuqa soo galeen waxaa la isla dhex marayaa maxaa ikraan 6 sano kadib loo soo hadal qaadaya sababtoo ah madaxda dowladda xilkoodii waa dhammaaday hadday wax u qabanayaan 4 sano mandate iyo sharciyada haysteen uma aysan qaban hadda oo ololo doorasho lagu jiro la dagaalamaya sadbursi badan uu jiro maxay tahay sababta ikraan loo soo hadal qaadayo ayay dadka qaarkood isweydiinayaan bal aduu markaa dhinacyo kala duwan wax ka qiimaysa xitaa toddobaadkan warbixin kala soo baxday oo sheegaysa in deegaanka ama degmada Garsbaale oo gobolka Banaadir ka tirsan lagu arkay meydka ruux looga shakiyay gabadhaas waa lafo oo kaliya mara bulug maariya ku duuduuban aanan la garanayn cidda halkaas keentay muuqaaladaas ayaa qabsaday baraha bulshada gaar ahaan Telegramka maadaama siyaasadaha Facebook iyo YouTube aysan ogoleen in muuqaalo noocaas oo kale ah lagu baahiyo dad badan waxay sheegeen in meydka ama lafaha shakhsigaas la arkay ay tahay Ikraan Tahliil Faarax waxaan rabaa markii inaan kula wadaago muuqaalada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hore cadaalad ugu raadinay gabadha xitaa Xasan Sheekh waxa kale oo ku jirta saraakiil iyo khubaro ammaan oo ka sheekeynaysa sida ay wax u dhaceen qaabka cadaaladda loogu raadin karo gabadhan iyo cidda ay ku maqan tahay macluumaadkaas oo dhan kula wadaagaya ha ilaahay inaad like saarto ku soo biirto channelka aragtidaadana noo reebto